inaan ka hadlo dhowr qodob ku saabsan ninka ama xaaladda Cabdikariin xaaladda Cabdikariin laga hadlayo horta markii baad waxay isweydiin lahayd Cabdikariin waayo waa kuma Cabdikariin waa nin dawladda deegaanka Soomaaliyeed Itoobiya u dhashay booliskii ugu horeeyay deegaanka kamid ah kadib waxa weeyaan dhibaato uu sameeyay iyo dil iyo dhac iyo kursi iyo waxa weeyaan dhibaato uu sameeyay duurka la galay oo ururka nabadiidka uu ka mid noqday dadkana dhibaateeyay gaar ahaan gobolka Doolo uu dhashay gaar ahaan degmada Wardheer iyo degmada waxa weeyaan Helow Danood deegaanka Qoraxay sharar iyo guud ahaan deegaanka dhanba dhibaatooyin badan nogob dhibaatooyin badan ka geystay ilaa iyo waxa weeyaan Shabeelle meelna dhibaato ka geystay ma jirto arintiisi iyo waxa weeyaan maxaan ku rahaa xaaladiisuna waxay u taalaa dastuurka dalka Itoobiya iyo hay'adaha nabadgelyada iyo dawladda mas'uuliyiinta sare ee dalka Itoobiya cid ay khusayso dastuurka Itoobiya nin hoos jooga weeyaan dawlad dastuur leh oo waxa weeyaan taqaanaa sharci leh oo sharciga caalamiga iyo maxaan ku rahaa maxbuuska iyo kan dalka iyo ka deegaanka intaba mid dawlad waxa weeyaan taqaanaa ilaalinayso oo waxa weeyaan maxaan ku rahaa nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci uu ka jiro ayuu Cabdikariin ma taqaanaa dastuurkaas hoos yaala iyadana u taala talaabooyinkii ma taqaanaa markaas waxa weeyaan dawladda ay ka qaadanayso dhanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay dadka siyaabaha khaldan uga hadlaya arrinta Cabdikariin qalbi dhagax isagoo sheegay inay wataan dana qarsoon oo u socda meel kale oo ay ujeedadoodu tahay inay soo celiyaan dhiig miiratadii al-shabaab iyo ubo dadka hadda siyaabo kala gedsan bay uga hadlayaan dad fikirro khaldan bay ku hadlayaan oo tusalahan Cabdikariin bay ka hadlayaan marka waxa isweydiinaya Cabdikariin cidda ka hadlaysa ee hadda maxaan ku rahaa weeyaan ayaamahan dambe ama diaspora ama Soomaaliya ha fadhiya dadka ka hadlayay horta waxa weeyaan Cabdikariin bay u daneynayaan baa taala su'aasha oo Cabdikariin way ka xun yihiin in wax la yeelo maya hirin agenda fara badan baa jira hirino agenda fara badan oo iskor saaran baa jira qaar waxay rabaan ma taqaanay kursiga ku doonayaan oo dawladda Soomaaliya ma taqaanay iyo waxa weeyaan nidaam wala isgaranaya wax iska cad weeyaan politics ka raxay halkaas inuu xoga soo dhaxbaxo ka raadinayaan oo iska cadahay marka waxa weeyaan taqaanay oohin bilaash ma taqaanay waxba ka jirin ma taqaanay oohinaya midna waa mid dawladda Soomaaliya iyo Amazon iyo Itoobiya iyo shacabka Soomaaliya waxa weeyaan halgankii ay galeen ee al-shabaab ku tirtireen waxa weeyaan al-shabaab ku weeqantay ee hadda mas'uuliyiinteedii ugu sareysay isku soo dhiibayso waxa weeyaan talaabada laga qaaday qorshe si al-shabaab loo soo celiyo al-shabaab baa loo ooyay Cabdikariin hotel lama ooyay qaar badan al-shabaab bay ooyay qaar waxa weeyaan dawladahan waxa weeyaan argagixisada sida Eritrea iyo kuwa la midkii hadda waxa weeyaan taqaanaa waxa weeyaan yaani maxaan ku raayay dalka Itoobiya ka xun horumarkiisa waxa weeyaan yaa ugu soo dhuumanaya kuwaas ma taqaanaa qorshayaal ay bixinayaan weeyaan dadka qaarkood oo iyagu dad nooca u hadlayo weeyaan madaxweynaha ayaa intaas ku daray in cidda dhahaysa Cabdikariin 77kii ayuu dhaawacmay ay uga habboon tahay inay ka hadlaan kuwa maalin kasta ku dhaawacmaya Soomaaliya iyo dhibaatada al-shabaab Cabdikariin 77kii uu dhaawacmay 77kii uu dhaawacay ninka dhahaya waxa isweydiinay nin markaa muwaadin oo 77kii ku dhaawacmay ayaa ka xumahay uu leeyahay miya hadduu taaleeyahay shalay ninka ma taqaanaa dhaawacmay ee al-shabaab ku dhaawacmay ee ciidanka qaranka ee Soomaaliya hadda jooga ciidanka qaranka ama hay'adaha kala gedisan ee dawladda Soomaaliya ee hadda al-shabaab ku dhaawacantay kaamu ka hadlo ma taqaanaa wax loo qabto kaamu ka hadlo dhibaatadiisa ma taqaanaa qoysaskiisa isagoo ay rafaadayaan kaasina ka hadlay shacabka al-shabaab ku dhintay Cabdikariin wuu nool yahay kuwa dhintay maalin kasta qaraxa la daba taagan yahay maalin qudha isagoo laga mudaharaad lama arkin su'aashan doonayna inaan weydiiyo caalamka iyo dadka iyo ciidan hadlaysay waxaysan waxa weeyaan war Cabdikariin marka uu mudaharaadaysa nin baa la dhiibay Cabdikariin waa hal shakhsi weeyaan waxa weeyaan dawladda Itoobiya oo waxa weeyaan taqaanaa 200 sano Itoobiya soo dastuur iyo sharci ka jira ayaa jira uu ka nasiib fiican yahay kuwii horaan leeyahay waxa weeyaan taqaanaa si nabadgelyo ku jooga wax ku taqaanaa ay ku dhicina ma jirto sana misanay dastuurkaas wuxuu siiyeen buleey marka maxaa loo waayay dad al-shabaab dadkii la iska mudaharaaday su'aal marka mudaharaaday oo taasoo isweydiinaya maxaa loo mudaharaadu weyday in dawladdii Soomaaliya la yaqaanay waxa weeye maxaan ku rahay waxa weeyaan horumar ka shaqeynaysa ee Soomaaliga keentay ee af Soomaaliga qortay waxa weeye taqaanaa yani
soomaalinimada mataqaana ay abuurtay waxa weeye maxaan ku rahaa horumarka lagu yaqaanay dawladii nooca ah baa naga luntay waan soo ceshanaynaa go'aana maxay u qaadan wayeen way tahay ugu mudaaraad wayeen inay maxaan ku rahaa dawladnimo 30 dawlad baa kor fadhiya oo waxa weeye mataqaana amisoomnaya ya kor fadhiya taa marka inta ka ficil ka qaataan inay iyagu ismaamulaan oo dawlad mataqaana noqdaan oo waxa weeyaan madaxdooda ka dambeeyaan oo is ixtiraamaan madaxduna ay iyaga ixtiraamta la ixtiraamta saasay ixtiraam ku leeyahay laakiin taana ima dhibayso oo adduunyada faraha badan ee kor fadhida Soomaaliya ninka Soomaaliga ee waxa weeye mataqaana Soomaaliya u dhashay inuu waxa weeye maxaan ku rahaay taa intuu ka ficil tabo uu dawlad waxa weeyaan isagu maamulo oo dawlad waxa weeye maxaan ku rahaa markaas iyadu kala dambeynaysa oo muwaadinimo ah inuu helo inuu u mudaaharaado waxa weeye maxaan ku raayay al-shabaab baa u diidanay al-shabaab iska dulqaado qabyaalad baa u diidanay qabyaalad iska dulqaado taas baa inuu ka mudaaharaado abdikariin ma ahayd mataqaana inuu ka mudaaharaado taa waxaan leeyahay dib iskugu noqdo waxa weeyaan waxay ka dhiganahay dadkii al-shabaabta leeynayay Soomaaliya ku dhintay ardada hay qalin jabinay waxa weeye maxaan ku rahaa ardada iyagoo maanta soo qalin jabiyay oo jaamacadda ka soo qalin jabiyay